waxa waliba iigu sii daran saaka maya shalay bay ahayd aan filaa shalay bay ahayd halkan Gaarisaloj ayaan mariyay gabarba laba gabdhood oo wada socdaa mid qabato waxay tiri Kenya miya way iska faraxdi markaas ay tiri sheekh daqiiqad ma kula hadli karaa haabaan yiri markaas ay waxay tiri sheekh waxaan ahaa gabdhaha inay maqlaysan waa laga yaabaa gabadha Allah asturo waan u duceeyaa waxay tiri gabdhaha ugu daran ee meesha fasahaada ka wadeeday meesha ku dhaxwaashay ayaan ahaa markaas sheekh markii aad soo gashay ee aan arkay sidaad Ilaahay noogu xiray sidaad nooga naxaysid sidaad noo jecesha ayaan bahalkii joojiyay markaas aan la kaftuma waxaan eerimiyad isku ruuxi jirtay gabadhii waa ilmaysay waxaad garanaysaa inaan raali ka ahayn waxaan waa un balaayo keep going qoladayso waalan oo inkaar qabta oo ba yaani ka waalaysa maahane gabadha raali kama waxay tiri ha ma ka saartay baadii waxay tiri intii aan qaawana iyo intii aan shruuxay waan ka saaray marka ii soo duceey gabadhaasna insha Allah si gooniba ugu duceyn doona haduu Ilaahay yiraahdo marka caqabadaha taas ayay ahayd inay markii hore baqayeen aniga laakiin markii dambe ay yiraahdeen sheekh waqtigii loo baahnaa ayaad meesha soo gashay waxaan filayaa gabadhaas aydan inay ku daawanayso message-ga u gudbisana ay ku cinda fali doonto waxaanu aragnaa mudooyinka uu ku furnaa aalada TikTok in aad soo dhaweyn fiican dhinaca like dhinaca share-ka aad ka heshay iyo dhinaca kale oo followers-ka aydan waxa ka leedahay waxa farxad geliyay ayaga waa 2 usbuuc 20 cisho inaan gaarin ba u maleeyaa 1 milyan waxa iga dhimana u maleeynaa 200,000 kaliya